kolka haddun bay habboon tahay aan dhagaystayaal idiin soo gudbiyo sheeko xariiradii maroodiga iyo atoorka oo kooban anigoo ku xijin doona geeraarkii uu Faarax Xuseen sheekadaa ku xusay. waxaa la yiri waxaa jiri jiray ceel biyo badan oo markay oonto ay duurjoogta oo idil u soo aroori jirtay kana cabbi jirtay. wuxuu ahaa ceel ay u sinaayeen dhammaan duurjoogta kuweeda ugu waaweyn sida maroodiga, libaaxa iyo wiisha, iyo kuweeda ugu tabarta daran sida sagaarada, shimbiraha iyo bakaylaha. maalintii dambe xilli ay jiilaal kulul tahay ayaa waxaa ceelkii u soo aroortay sagaaro oo atoorkii boqorka u ahaa oo hor socdo. markay biyihii cabtay dhowr jeerna ay ku rakaadatay ayay u harsi doonatay agagaarka ceelka geedgaabkii ku yeel. dabadeed atoorkii oo calooshii buuxsaday ayay mar qura wax ku soo dhaceen. tobaneeyo sagaar isaga oo hogaaminaya ayuu ceelkii dib ugu noqday oo inta ciid iyo dhoobo ka buuxiyey haddana oodafo weynaatay afka ka saar. sow kibir baa taabtaye wuxuu ku tashaday maalintaas kadib duurjoog dambe inaysan kaba cabbin ceelka. muddo gaaban kadibna waxaa isa soo dhigay maroodi iyo wiil oon bastoodla ah oo inta kalkoodii soo galay aroor ah. kaalinkii ceelka markay u soo dhowaadeenna waxaa u muuqday wax aanay filayn. waxay indhaha ku dhufteen ceelkii oo ood afka laga saaray iyo atoorkii oo dul fadhiya. markaas bay yaab u go-een. hase ahaatee cidda falkaa ku kacday inay atoorka tahay markay ogaadeen kumay soo boodine way u miiriyeen. maroodigii ayaa ku yidhi, waryaa atoorow, qoraxeed xun baanu ku jirnaa oonna waanu la liidanaaye hana oomin. ceelka aad ciidda ka buuxisay annagaa qodaynee geedkaa iska harso, hadhowna wax biyihiisa afka saara adigu ugu horree. hadalkaa qabowse atoorkii rabbi wax ugama dhigin. haddiiba taladii loo soo jeediyey wuu ku gacan sayray. markaasuu isaga oo yasaaya maroodigii ku yidhi, ceelka cid ka cabbaysaa ma jirtee calaacalka intaydun iska daysaan xoog iyo itaal kaga cabba, haddii kale sawaxanka igala kortaga. maroodigii baa kolkaa isaga oo aan dheerfin wuxuu isku dayey inuu atoorka si walba ugu caqli celiyo. wuxuu u faahfaahiyey aayoxumida kibirka iyo guuldarrada galdarrada laga dhaxlo. wuxuu xusuusiyey in ceelka loo siman yahay ee aanu ahayn miduu isagu gacnihiisa ku qotay ama uu aabbihii uga haray. haddana wuxuu u sheegay in eebbaweyne mooyee ciddii kaleba kibirka ay ku hoogto oo ku ba'do iyo in isaga iyo iyaga aan wax eed ahi u horreynin. dhinaca kale wuxuu ugu caqli celiyey isaga maroodiga ah iyo wiilku mar hadday ceelka ka cabbaan inay muddo dheer ku qadaan kana maqnaadaan, halka uu atoorku yahay midka dhalaar walba iska ag jooga ee ka waraaba. sidaa darteedna ay ku habboon tahay iyadaa dani ugu jirtaaye intuu xagga nabadda u xagliyo inuu iyagana ceelka miila uga oggolaado. ugu dambaystii wuxuu ku cabsi geliyey isaga iyo wiilku inay uunka eebbe ugu xoog badan yihiin. taana uu ku ogaan karo geedaha quracda ah ee intay jirda siibeen ay iyagu dhulka soo dhigeen, atoorkuna uu indhihiisa ku arki karo. hase ahaatee waxaas ogaanaya waxa oo tusaale ah atoorkii wax yarna kama bedelin. waxaana la abankacay geed nagaarka jilabka lagu magacaabo markii uu geesihiisa yaryaaraa dhowr jeer ku hirdiyey. talaxumadiisa waxay ka ahayd dhoolatus uu awooddiisa ku muujinayo, bahallada waaweyn ee meesha taaganna uu ku bajinayo. dabadeed jawaab kale sidii looga sugayey waatuu atoorkii ku xira dalaaqay iyaga oo ooman inay oonkooda la fogaan, haddii kale dirir laysku baaba'a ay goobta ka dhici doonto. maroodigii oo xira dalaaqaas ka hor aan caroon ayaa mugga camal guhaadooday, ciilna la madax wareeray. mar keliya ayuu go'aansaday inuu atoorka nafta weysiiyo, sidaasna kibirkiisa ay doqonnimadu weheliso uu ku eedsiiyo. markaas buu jeegihiisii balbalaaraa iyo foolkiisii xoogga badnaa intuu kala faanay ku dul saarooday oo fud weyn madaxa kaga bashaaqay, halkaasoo isla markiiba uu atoorkii ku baktiyey. dabadeed markii sidaas awoogood loo dilay ayay meel ay joogtayba sagaaro oo idili kulan isugu timi. waxay ku tashatay inay maroodi disho, welibana ay u disho isla habkii uu isagu wax u dilay, sidaasna ay ugu aarto atoorkii ay ka soo fireen. maalintaas bay sagaara ku heshiisay tu waliba inay meel qurasaaladeeda ku ururiso si kolka dambe markay isku biiriyaan ay u noqoto wax la egtii maroodigu uu abkood ku aynabay. siday haddaba sheeko xariiradu leedahay, maroodi godobta kaga maqan iyo
tashigii ay isku dhaarsatay ayaa sagaaro ugu wacan saara ururinta joogtada ah ee ilaa maanta ay ku howlan tahay. si kastaba ha ahaatee faarax xuseen oo sidaan soo sheegay u dan lahaa gabyaagii la oran jiray maxamuud muuse ayaa sheeka xariiradan geeraar dheer u rogay. waxaynu ka soo qaadanaynaa qaybihiisa ugu horeeya ee sheeka xariirada khuseeya. wuxuu yidhi war allahu akbarey ilaahba amar weyn aadni waaba laciif islaamkii awalkiisu shahaadada weeye aayaddii nebigeenna akhriskeeda horeeto bisinkaan aftognaa gabaygana ildihiisa arar baa la yidhaah caaqiliin hadalkeedana mahmaah bay ku idlaysay oo tanaan noola ekoon. war allahu akbarey atoor guuyo sagaariyo aw bariis weyeeleed iyo maroodaa is-iraaqayoo aroor bay ku kulmeen abtadii dulmigeedana atoor baa u lahaayoo ceelkiibuu asaruuray. aw maroodi ku laab atoorow hana oomin amminkan aynu joogno amnac baa la yidhaah annana haatan nafteenna asqaan meesha la naal. ceelkanaad asaruurtay bal intaan ka qodayno aayar geedka fadhiiso amminkaan ka idlayno oo ilihiisa bannayno annagoon afka saarin bal uurkaaga ka buuxso. atoorkii ku jawaab maroodow orka daah afku yuusan ku daalin ceelka waa laga oomi anigaa asaruuray oodtiid baan ka qabaa ama oonka la luuda ama oohinta daaya oo addimowla imaada. waa akhyaar camalkeedii aw maroodi ku laab atoorow abtigeenow aabil layskuma maago ilma maahid carruura eedinooma horreynin idiflayda sagaarana adigaa u amiira ceelkaad ooda kor saartay adoogaa ma lahayn addinkaa kuma faagin wax ilaah aan ahayna amar waa ku lumaan annana eeqa ma fiicnee ijaabaanu rabna. mar haddaan afka saarno omas baan u fullaa ayaamaan ku qadnaa adiga iska ag joogay amin doonta waraabo ayaantii aan nimaadno miiro noo ogolow. intii eebbahay uumay wiilkaani ag joogiyo anigow addin weyn quracdaan alkaxaynay waatan ceelka ag taalla indhahaaga hortoodana adba waad aragtaa. war allahu akbarey waa wax mawd ka adeegaya inkiryo kama yeelinoo qusla aaqaba diidiyoo jillab geeska la aadiyo inaad oon la fushaan ama laysku idlaan buu araddii ku dalaaqay. war allahu akbarey waa ninkii aad ogayda iliguu kala faanayoo diguu oobta ka saarayoo oo turaabtaa kula aasay atoor guuyo sagaarana araggiisba lawaa. al'aankaas aynu joogno aan maroodi asiibniyo awowgeyn aan u aaray ab sagaara qabtaayoo waa tanhiisha uruurin. caaqiliin hadalkeedana mahmaah bay ku idlaysay oo tanaa noola ekoon.